taliyaha ururka shanaad guutada 16aad ee danab gaashaanle xasan aadan ciraaqi ayaa howlgallo qorshaysan ka waday dhowaanahanba galbeedka magaalada Kismaayo iyadoo ay ururka gobolkoodu sii dhacayo ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sifeeyeen tuulooyin ay ka mid yihiin Cabdidoore Beerxaani Bilicsan iyo Xadxaad gaashaanle xasan aadan ciraaqi ayaa waraysiyo dhinacyo badan taabanaya siiyay idaacadda ciidamada qalabka sida isagoona dhanka kale hambaliyada bisha Ramadaan la wadaagay ummadda Soomaaliyeed walow uu sheegay in ay sii laba jibaarayaan howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga ciribtirayaan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ugu horeyn waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyaynaynaa dhalashada bisha barakaysan ee Ramadaan runtii waxa weeyaan ciidanka gaarka ee Soomaaliya danab runtii waxa weeyaan hawlo fara badan buu hayaa hawlgalkii maalinka dhaweyd ugu dambeysay waxa weeyaan ciidanka danab ay fuliyeen runtii waxay ka fuliyeen goobo muhiima goobaha waxa kamid ahaa waxa weeyaan tuulada Bilicsan la yiraahdo tuulada Xadxaad waxa weeyaan Cabdidoore Beerxaani tuulooyinkaas ay ciidamada sida gaarka u tababaran ay tageen runtiina waxay qabteen waajibaad ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxa weeyaan isleenahay way u aayay doonaan waxaana isleenahay cadawgii halka joogay saraakiisha waxa weeye ciidanka hogaaminaysa si dhow ay ula socdeen kadib markii aanu ka war helay nimanka cadawga is urusigooda iyo waxa weeyaan inay khatar ka soo wajahan tahay baa ciidanka gaarkii ka howlgalay gebi ahaanna waxa weeyaan meelihii ay ku sugnaayeen ciidanku si nadiif ah u burburiyay shaqo waxa weeye qaran bayna qabteen ciidanku marka ugu horeysa goobihii waxa weeye ciidanku maaragtay si ma garanaysaa hufan oo waxa weeye shaqo qaranabay halka uga durkiyeen haddana waxaan isleenahay goobihii maartay ciidanku uu tagay ilaa hadda wax cadow oo yimid ma jiro ayaga oo waxa weeye ka cabsi qaba ciidanka gaarkii inuu istoonu tagno waxaanu kala kulanaa dadka shacabka ee Soomaaliyeed soo dhaweyn wanaag iyo waxa weeye diilad dawladeed inay dadkaas u baahan yihiin okay waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maadaama oo aanu hayno shaqada khaaska ah waxa weeye cadawga ku saabsan haddii aan wax ka taabto waxa weeye xogta ama xaaladda ay cadawgu maanta ku sugan yahay waxa weeyaan marka ugu horeysa in ay tabar dhigeen oo maanta itaal ay ciidamada Soomaaliya kaga hor yimaadaan guud ahaan nimankaasi ma hayaan waxa weeye kala shaki iyo waxa weeye waxa ku dhacay maartay inay iyagu ay dagaalamaan inay iyagu kala shakiyaan oo waxa weeye shaqooyinkoodii 70% ay hoos u dhac ku yimid waxa kale oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa maalin walba iyo shaqo kasta oo qabanno waxa weeyaan inta aanu cararaysa inta anaga noo soo cararaysa ka badan inta waxa weeyaan maalin walba isa soo dhiibaysa ee runtii intay ciidamadu si nabadgelyo u soo qaadaan goobaha lagu dhaqan celinaya la keenayo way badan yihiin waxa kale oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa guulaha aanu maalin walba la taaban karo ee ummadda Soomaaliyeed u hayno waa kuwa runtii aan isleenahay ummadda Soomaaliyeed baa u aay doonto waxa kamid guulahaas marka ugu horeysa waxa weeye waxaan beegsanaa madaxdooda aan beegsanaa waxa kale oo aan beegsanaa goobaha marinka iyaga u ah waxa weeyaan wadooyinka ay soo maraan runtii waxa weeyaan waxa kale oo aanu beegsanaa talisyada ay leeyihiin baan beegsanaa waxa weeye guulahaas oo dhan waxa weeye way noo qabsoomeen haddana waxaanu sii laba jibaaraynaa maadaama oo bishii barakaysnayd lagu jiro inaanu shaqadii aanu wadnay ayadoo laba jibaaran inay ummadda Soomaaliyeed arki doontaan rajaynaynaa wayna noo qorshaysan tahay wayna arki doonaan ummadda Soomaaliyeed wax qabadka ciidamada Soomaaliya guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa wacad ku maray in ay dhagar qabayaasha maleegaya dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed in aysan u sii socon doonin ayna ka warqabaan dhaqdhaqaaqyadooda Sharmaarke Mahdi Cabdi idaacadda ciidamada qalabka sida magaalo xeebeedka Kismaayo.